halkan waa horyaalka shacabka ee YouTube-ka kusoo dhawaada mar kale iyo is arag wanaagsan maanta muuqaalku waxa ku saabsan yahay waxay tahay waa part 2 dadka shaqeeya iyo xuquuqda lacageed ee ay leeyihiin iyo meelaha ay ka soo kala galayso macnaha dadka familada ama odayga ha ka shaqeeyo ama hooyadu ha ka shaqeyso ama labadooda ha shaqeeyaan xuquuqda lacageed ay leeyihiin iyo meelaha macnaha cadadka ma hadlayo kaliya waxaan ka hadlayaa lacagaha ay helayaan iyo meelaha ay ka soo kala galayaan macnaha marka taas aan ka hadlayo waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed oo ama wadankan ku cusub ama wadankan hore u joogay ayaa laga yaabaa in uusan ogeyn qofku lacagta uu xaq u leeyahay iyo meelaha uu ka kala helayo hadii uu shaqeeyo ama hooyadu ay familka ka shaqeyso marka badanaa marka lacagahan aan ka hadli doono waxay ku saabsan yihiin waxay tahay dadka familada ah ee markaas qofku waxa laga yaabaa inuu shaqeeyo kale ama hooyadu ay shaqeeyno kale marka lacagtaas waxa laga yaabaa kiradii guriga noloshii qoyska kale inaysan kaamileyn oo kale marka iyadoona marka lacagtaasi aysan kaamileyn cuntadii guriga iyo noloshii guriga waxa laga yaabaa qofkaas inuu u baahdo kale caawinaad oo kale marka lacagaas caawinaad inta hadii halkee uu ka helayaa hadii marka lacagta uu helo kale ama hooyada iyo aabaha labadooda ay shaqeeyaan oo kale lacagta helaan dhammaan guriga iyo wax walba ay ku filan yihiin oo kale noloshaasna ay dabari karaan oo kale waa okay laakiin hadii uu culays jiro kale oo lacagtaasi aysan ku filnayn ama ay lacagtaas ku filan tahay laakiin waxyaabo kale oo dheeraad ay ku qaban karaan lacagaha ay xaq u leeyihiin maxaa kamid ah kow phone galdi macnaha waa social health ayaa bixiya ama raadowska ayaa laga bixiya marka waa phone galdi macnaha marka waxa lagu caawinaya waxay tahay lacagta guriga ayaa laga caawinaya qofku tusaale oo kale lacagaha aad qaadatid oo kale warqadaha loan application oo kale laga yaabaa in la fiiriyo last year oo kale ama latest year oo kale waxaad qaadato kale ama 6 bilood ugu dambeysay 3 bilood ugu dambeysay adigu waxa ay ku weydiin ayaga ku xiran tahay waxay fiirinayaan marka gurigaaga lacagta ku baxdo iyo noloshada caadiga lacagta ku baxdo marka way fiirinayaan oo kale marka intii aad xaq u leedahay intii aad markaas marka xisaabta dejiyaan aad xaq u yeelatid ayay ku siinayaan waxa laga yaabaa kale haduu gurigaaga qaali yahay oo kale inay markaas ama 200 300 400 ay ku dhahan ku kab kirada guriga oo kale marka waa phone galdi maalintii aad shaqada bilowdid ee aad job center macsalaamaysid ayaad lacagtan aad qaadanaysaa marka ogow muuqaalkan waxa uu ku saabsan waxa uu la hadlayaa bas waa dadka shaqeeya ee aan job center ama social lacag ka qaadan lacagtan marka waa phone galdi waxa laga xareystaa qolooyinka socialka ama raad house-ka degan ayaa laga xareystaa waa kow mid labaad waa kinda social ama kinda socialagan adigu sida dhahdid marka lacagtan marka kinda socialagan qolooyin la yiraahdo ayaa bixiya waxayna isleeyihiin qolooyinka ku siiya lacagta bixiya macnaha kinda galdiga bixiya marka lacagta ilmaha ee aad qaadatid ee kinda galdiga ee bil walba ku soo dhaxda lacagta kinda galdiga waxa la siiyaa qofku ha shaqeeyo ama yuusan shaqeynin lacag job center ka qaato ama yuusan ka qaadan mar walba lacagta kinda galdiga waa must waa la bixinaya waa lagu siinaya laakiin lacagtan kinda socialagan familia kaasaha baa bixiya qolooyinka macnaha kinda galdiga ku siiya baa bixiya laakiin waxay siiyaan waxay tahay qoysaska shaqeeya ee aan job center ama socialka lacag ka qaadan ee markaas noloshooda markii ay codlis ahaan la fiiriyo aanan si toos ah iskugu filnayn internet ka raadin kartaa google ka raadin kartaa marka ogow maalintaad shaqo bilowdid ee aad job center macsalama aad dhahdid kinda socialagan xareyso waa ku muhiim ayaguna sidoo kale warqadii ugu dambeeyay sanadkii ugu dambeeyay warqado badan bay ku weydiinayaan marka hore laakiin waxa ku muhiim ah in warqadahaaga lacagta aad ku qaadatid ama hore uga qaado job center oo kale lacagaha kale ama lacag hadaad hooyada kale ilmo aad hore u soo yeelatay oo kale lacaga ay ku siin jireen oo kale ha aato oo lacagta nasan jinto kale lacag walba oo ku soo gasho warqadeeda waa inaad haysataa laakiin warqadaha qaar maalinta dhumisid ama ay si ka noqdaan ogow waxyaabo badan culays badan baa kala kulmaysa wayna ku adkaan inaad xareysatid marka warqadaha xafido
marka kinda sushalagan ayaa la yiraahdaa waa boontiga labaad kinda galdina waa wax la wada yaqaano oo mar walba ku muhiim ah marka saddexdaas lacagood ayaad qaadanaysaa oo ka dheeraad ah lacagta mushaarka ee shaqada ka soo gasho sidoo kale lacaga badan oo markaasi laga rabay inaad bixisid oo markaasi waxa jira kuu fududaanayo oo laga yaabo in dawladdu ka caawiso tusaale kale foon galdi ama kinda sushalagan lacagteeda haday ku soo gasho waxaad xaq u leedahay inaad heshid tigid billa ah oo raqiis ah ilmahaga iskuulka sidoo kale waxay xaq u leeyihiin inay helaan tigid raqiis ah oo billa ah ay xaq u leeyihiin qasam ma ahna hadaad shaqaysid inaad tigid double ah lacagtiisu ay double tahay aad kadib no ugu mar walba wax waay la soco sidii wax u jiraan sababtoo ah hadii aad badanaa aad waxyaabahan aad raadisid sidoo kale ama internet ka raadisid sidoo kale ama qolooyinka badanaa social oo kale waxyaabahaas kale ku saabsan ama dadka caawiyo kale hadaad weydiiso kale waxa laga yaabaa inaad helin laakiin hadii aadan inaad heshid laga yaabaa laakiin hadii aadan wixii ka warqabin oo aad dhahdid anigu waa shaqeeyaa waa orda aad dhahdid waxyaabo badan lacag badan oo aad bixinaysid ayaa jirta oo markaas laga yaabo hadii aad dad badan xooraansi badan sameyn lahayd oo kale inaad ogaatid lacagaas inaad xaq u lahayn inaad bixisid oo kale marka tigid marka raqiis ayay ilmahagu helayaan adiguna aad helaysaa waa hadii aad shaqaysid oo lacagta gurigaaga aysan si kaamil lacagta noloshaada aysan si toos kugu filnayn sidaad ogtiin dadka familada ah ilmaha markay iskuulka aadaan oo kale waxa jira inay qada ka cunaan ama sidoo kale kindergarten oo kale ama xanaanooyinka oo kale ilmaha inay qada ka cunaan marka lacagahaas waxa ka bixinaya qolooyinka Bildung und Teilhabe la yiraahdo ayaa ka bixinaya waxa laga yaabaa oo kale hadii aad lacag xoogaa badan aad qaadato kale inuu ku dhahaan nus bixi qayb bixi annaguna qayb aan bixinayna laakiin u badanaa inay ayagu bixiyaan waa lacagaha markaasi aad bixin lahayd markaasi dawladdu ay ka kabayso markaan kasoo tagno saddexdii lacagood ee hore kugu soo sheegay waa foon galdi kinda sushlag iyo kinda galdi oo mar walba dadku iska qaataan oo kale saddexdaas markii laga soo tago waa tigidka horaan kugu sheegay oo kale iyo sidoo kale lacagta qadada ilmaha kale ilmaha ama kindergartenka aad oo kale ama iskuulka aad sidoo kale lacagahaas ayaa kamid ah marka hadii marka ilmaha ay u baahdaan oo kale koorsooyin kala duwan oo kale koorsooyin waxa jira ilmaha loogu talagalo oo kale oo aadaan oo kale oo ku saabsan oo kale dabaasha sportiska ciyaarto kale sportiska aad buu u tiro badan yahay kuwa gacmaha laga ciyaaro kale barooriga caadiga way tiro badan yihiin koorsooyinkaas badanaa la bixiyo yar lacagooda aad buu u badan yihiin runtii laakiin waxaad ogaataa lacagahaas inaad bixin karin marka dawladda iyada ka kabayso qolooyinka Bildung und Teilhabe la yiraahdo ayaa bixinay waxayna lacagtaasi sida ay qadada ilmaha uga bixiyaan oo kale uga bixinaya marka hadii ay uga badato waxa laga yaabaa kale inay ku dhahaan oo kale qayb bixi annaguna qayb aan bixinayna ama lacagta laga yaabo kale 200 hadii ay ahayd oo kale koorsigaas oo kale in lagu yiraahdo 100 bixi annaguna 100 aan bixinayna marka koorsooyinkaas ilmaha u baahan yihiin oo kale ama ilmaha dalxiis haday aadayaan oo kale waxyaabaha noocyadaas oo kale dhan kulligood waxa sameeyaysa qolooyinka Bildung und Teilhabe la yiraahdo antarag ahaan ayaad u qoraysaa ayagana bixinay lacagahaas marka hadii intaas laga bixiyay oo korna lagu siiyay saddex lacagood oo foon galdi kinda sushalagan iyo kuwan kale runtii bandar ayaa jiifta waxa intaas dhan ku dheer lacagaha shaqada ka soo galay marka sidaas u ogow hadaad hore ogeydna waa kaas hadaad ogeydna hadda sidaasi ogow sidoo kale waxyaabo kale oo la bixiyaan way jiraan oo tiro badan laakiin inta ugu muhiimsan anoo soo koobay intaas ayaan ku soo gabagabeynaya waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo fadlan subscribe ha iga hilmaamin sidoo kale like iyo comment-gana waa ii dhiirigelin muuqaalkan iyo muuqaalada xiga insha Allah inta kulmi doono mac salaam